Its maritime border dispute with Kenya to the United Nations top court, the International Court of Justice, which is based in The Hague. Now, the case filed yesterday is expected to heavily influence the fate of the potentially lucrative oil and gas reserves off the Kenyan coast. KTN's Noah Otieno reports. Kenya iyadoo ka faa'iideysanaysa dawladda Kenya iyadoo ka faa'iideysanaysa burburkayadii dawlad la'aantayadii ayay 2005 waxay jeexatay xuduud ayada kaligeed ay calaamadsatay isla markaa ay xuduudka samaysatayna kambaniyo ajaanib ah ayay qandaraasyo ku siisay inay cilmi baaris ku sameeyaan oo ay kala soo baxaan wixii kheyraad ay ka helaan maalinkaasay badeenu muran gashay ilaa maalinka ilaa maantana way ku jirtaa Kenya weli way ku jirtaa 2005 ilaa hadda waxaan u maleynayaa ilaa 6-7 company ayay qandaraas ku siisay oo blogyada ugu badan qandaraas ku siisay oo Talyaaniga laga leeyahay total baa ku jirto Francisco laga leeyahay Andraco ayadana oo maleyna Ingiriiska inay tahay Serira oo laga leeyahay Mareykanka Start Oil oo laga leeyahay Norway intaasoo company ayay qandaraas kula gashay dawladda Kenya in badda Soomaaliyeed iyadu ay jeexatay ay muxuu ahaa cilmi baaris ugu sameeyaan si kheyraadka ku jira ay uga soo baxaan intaasoo sanaa soo jirin intaasoo dawlad soo ahayn intaasoo kan ahayn xabadeena maanta muran geliyey su'aal dadka dhan isweydiinayaan waayo see u wajahnay anaga marka that's the measha muranka badan oo ka dhaca waa halkaas waayo marka waddaniyad xumo iyo dhulkii inay iibsadaan bay u galeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دواد ورئيسي آد وحيس بدن وأن الله يلني مدن فيصل علي حسين وأه سياسي رئيس سومالي لانه وآد لوجي قانو جيجا سومالي ده فيصل مقعيق عبد الكريم علي كار
aad baan kuugu soo dhaweynayaa telefishinka Somali Channel waanad ku mahadsantahay fursadda maanta aad na siisay mahadsantahay adiga mudan Faisal waxaa 7 bishan magaalada London ka dhacay shir loogu talagalay Soomaalida waxaa jirta arrin kale oo shirka si toos aan looga wada hadlin laakiin ku lahayd oo lagu damacsan yahay in Soomaalidu ay ku saxiixdo sharciga xuduudaha badda adduunka maadaama Soomaaliya iyo Somaliland aan si official ah wali loo kala goyn haddii sharcigaasi dhaqan galo wuxuu saameyn ku yeelanaya ama qabanaya Somaliland horta waxa meelgiis loo hadda ku soo dhacday higiyadim leeyahay waxa weeye waa ooya shaa ku jirta Indian Ocean beriga horena la isku qabsay Kenya ay haddana Ingiriiska iyo wadada Norwich ay tanaynayaan waxaan dawladdan loo buubiyo waxa weeye in laga seexdo in badda la baaro la qolo lacagta ka soo baxda badna unisom la siiyo badna ay qaataan badna wax loo socdo waa intaas waa interest waxa socota Ingiriis iyo Norwich interest Soomaaliya horta meesha ma socdo Norwich waa ka wada hadlana bishii January in badda xuduudda badda la gaarsiin 200 kilometer inay doonayaan si aanu baarlamaanka Norway uga Soomaaliya uga hor imanin in baarlamaanka Soomaaliya la casuumiyo Easterka waqtiga casuumada si dhacday Chairmanku laga raariyo mashruuca soo socdo hadda dawladdu saxiixdo aan ka hor imanin in magaalada baarlamaanku